Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhalinyaro meel kastaa joogtaan, rag iyo dumaro, reer Facebook, reer social media, soo dhawaada. waa walaashin Shankaroon Cumar. hadda caawa anigu waa xanaaqsanahay. waxaan aad iyo aadan u xanaaqsanahay. xanaaqayguna wuxuu ku saabsan yahay, waad ogaan doontaan. anigu horta waxaan ahay dumar. magaca waxaan kala simanahay gabdhaha meelaha la wadwado. magac dumar waa dumar, maradu waa ka siman yihiin, magacu way ka siman yihiin. waxay ku kala gedisan yihiin ad adeega iyo kartida kaliya. alxamdulilah, intii wanaagsan ilaahay wanaagood ha u siyaadiyo. waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed ayaan la hadlayaa. mar walba waxaa la yidhahaa waay gabdhaha ula safan tahay. gabdhaha waxaan ula safanahay, ragow maanta ogaada, waxaan gabdhaha ula safanahay waxa hadda la wareejinaya oo dhan waa gabar kastaana wiil baa la dhashay. wiil kastana waxaan rabaa inuu sharaf dadkiisa ku dhex joogo, duurkiisa ku maro, shaatigiisana u taagnaado. aabba kastana waxaa rabaa kafateeri iyo maqaayad inuu si sharaf oo qurux badan oo u fadhiisto, gabadhiisana u wanaagsanaato oo ku faano. sidaas darteed ayaa aboowe iyo adeeryaal iyo aabbayaalba gabdhaha waa aan u gaarsiiyaa wacyigelinta. ma rabo gabar in laga caqli badiyo. hadda tusaale ahaan waxaa socota 3 gabdhood oo masaakiin ah in views lagu raadsado, in magac lagu raadsado. waa dumar, waxaa dhalay aabbo, waxay la dhasheen rag. waxaan isleeyahay gabdhahaas guriga hooyadood waxay cunaan iyo waxay cabaan ma ka waynin. sorry, telephone ay soo galay. waxay cunaan iyo waxay cabaanba kama waynin. guriga hooyadood iyo aabahood sharafta ay ku lahaayeenna waxaan aaminsanahay maanta mid meesha hadda ay ku jiraan wax sharafa inay ku haysanin, because shalay markay dadnaayeen aan la ogeyn way sharfanaayeen baan islahaa ani. 3 qofood hadday raali iskugu tahay hal qol, 3dooda raali iskaga yihiin, anaga waxa u dhex galna waa qalad. laakiin waxa aan ka dideeno ka dumar ahaan aniga waxay tahay waa gabdhahan social media la keenay. inta soo saftaan la yiraahdo weliba ninka ragga ah, bal fiiri aabihii aaway aaminay gabdhahaas dhalay ee soo siiyey ee kusoo meheriyay. hooyadii oo tiri wiilkaygii aan sodoga u ahay aawe, ma wuxuu yacni abaalkoodii ka dhigay inuu gabdhihii yiraahdo heblaaye ma ku xadgudbi karto. markay ku xadgudubto habeenka qur-aanka markaan u dhigaayo waan garaacaa. hadda xataa wuxuu ku samey lahaa uu sheegay. shareecada islaamka qabta aaway sharciga. war kutub gaal iyo mid muslim ay ku qoran tahay ma jirtaa nin zawjaadkiisii ilaahay xalaasha uga dhigay oo la leeyahay xurmo. markii la leeyahay dumar waa xurmad, la leeyahay gabadhu waa in la ilaaliyaa, la asturaa, waa cawro. inuu banaankii keeno oo yiraahdo social media ka sheego, haddana xataa sida loo hadlo ma yaqaan. waxaasa iska jiraan. war gabar maxaa ku qaaday caqli xumada ku qaaday guriga hooyada ee aabaha kaa soo waday maxay tahay? ma kunka rag oo magaaladan joogo oo ilaahay wanaajiyaad arki weyseen indhihiina ma qabtaan miya? kasoo gudub inuu yacni yiraahdo qol bay degan yihiin 3dooda. markaan midii habeenka u baahdaa ii imaata, haddana wuxuu caddeeyey habeenkii bas midii loo baahan yahay inay qolkaas iska xaadiriso, cilaaqaad kaleba ka dhexayninba. way isku qanacsan yihiin. haddana waxaaba kasii daran asagoo meesha fadhiya ayuu yiri 3duba kuma ekaanaye mid afraadna waan sii raadinayaa. meesha iifa fadhiya gabdhahan wax lagu aqriyay ama garan la ahay aniga. farxad kama muuqato. gabar ku faraxsan in social media la keeno ma jirto. runta maa laisku sheegaa mise been? war ninka run sheegina la beena u qarsan. gabar ku qanacsan wallaahi inaysan jirin in social media la keeno. kasoo gudub waxaa sii kala dhacday ninkii wax duubayay asaga indhaha fiigsan. maasha allah. waxaa waayey anigu meesha shoppingkan ka ganacsadaa, waa usoo bandhigaa
gabar kasta way yeeshaa. Hadda weliba gabdho badan baa saf iigu soo jira oo idhahaan xataa ani fartaa ii taagan. haddaba gabdha waxaan in sheegayaa marka gabdhaha wanaagsano iyo kuwa khayrka jecelo dhagihiina fura. kuwa ordaayo guriga hooyadiin abiin ka ordaayo maalin kasta intaan inka fiirsanayna idinku faaraxeer saf ugu jirtiin maalinna in wada bixiyaan maalin kaleetana kuwa kale in kusoo bedelaan sida xayawaanadii suuqa lagu kala gadanayo ariga ama saas la in saf la ingeliyo xoolo la iibinayo kale ayaa in sugaa. laakiin hadda gabdhaha dhagaha furta kuwa dhagahoodu waanada u furano walaalayaal way dhagaysta. guriga hooyada iyo aabbaha waxaad ka tahay kooweyn sariir hal sariir aad seexatid maadan ka waynin. maxaad cuntidna maadan ka waynin. waxaan kaa codsanayaa gabar kasta ayada isqaada, gabar kasta ayada dhulka iska qaada, gabar kasta ayada ayaa kor isgeysa. haddaba imaqla kor bay isgeysaa gabar kasta. naag walbana meeshii isdhigta ayaa taalaa. abaayo min fadlan inta noocaas aad u tegi lahayd ood ninka dhigan lahayd oo halkaagaa sanka iyo wejigaagaas uu fiirfiirsan lahay noocaas oo kaleeto social media wejigaaga u qalmin ku keeni lahaa. min fadlan guud oo dhan ka istaqaarayso guriga hooyada aabaha jooga. maxaa ku wadaya baahida ku haysa maxay tahay? waxaa soo haro kaleeto gabdhaha nimanka qabow oo ninka abaayo gabdhaha wow oo waxaan ka wadaa gabdhaha xaasaska koowaad ee la guursaday ninka qaba abay ninkan adiga kaama buljo sareeyo asaguna maaha dahab adna bulka hati ma tihid adigaa dahab ah. markuu ku yiraahdo xaasaan guursanaya hadduu ilaahay u calfay inuu kula guursado ha ka ogolaanin inuu ku bahdilo ku karaama dilo ku jiidjiido. markii la leeyahay nimanka naagaha qaar dhahaan naagu guursade intuu ka guursanaya wir waa kaasa naagahaasi toban taageersana maanta wixii ka dambeeya waayo wixii og waxaana kaleeta iska jira berita saan oo kale ula dhaqmaya. abaayo ninkaagu hadduu kula guursaday guur aniga ma kasoo horjeedi. guurka ilaaha baneeyey mana ka hadlaayo. laakiin guurkan hadda jira ee social media layskeenaya ee safka dheer laysgelinayo ee la leeyahay zawjatul awal thani thalis waraabica sii dhiman la leeyahay that is not abaayo guur wanaagsan. yaa lagugu dagin yaana fiyubis lagugu raadin. waalidkii ku dhalana calool xanuun ha u keenin. wejiga hadduu kuu xiran yahay ana haddaa ku aqoon xaniimo kaloo ku taqaanaa jirto. xishow warragow idinkuna waxaad badanaad dumarka aan ula jiro waa tan oo kaleeto. adigu walaalkay haddaad adigu aad leedahay ninkan nin fiican waa laandheero waa saasa sameynaya ogow gabadha walaashaa baa lagu sameynayaa. walaashaa way niyad jabaysaa adiguna waa niyad jabaysaa. kii walaashiis halka qol lagu qabaday social media wadaasa raalinimo intaa raadinaysa saas raaliyo laguma noqdo abaayo. walaashaa nin wanaagsan dooq. gabar kastoo aad aragtidoo dhib ku jirtana caawi abow. gabdhaha soo haray haddaad raalinimo rabtid raalinimadu waxay tahay inaad zawjkaaga adeecdid awaamirtiisa qaadatid lugaha u saliidaysid ka dambaysid. laakiin mayaanya cadaaneeto lagu leeyahay haya zawjati awal ana zawjati thani wa thalis wa raabicna waa kuwaana ku hortaagan yihiin. that's not life abay. waa ku bariya bakaari inta tagtid bagaash gadgad taasaa nolol ah. ninka ragga ah ee naag guursada waa inuu naagihiisa kala meeleeyaa inuu meelo kala geeyaa. hadduu xataa guriga isula dejinayo heshiis ku yihin anaga heshiis wixii lagu yahay inaan afaarahaas galna maaha. xataa haddii heshiis lagu yahay waa in qof walba xuquuq iyo xaq ay leedahay. laakiin hadda meeshaas laba qola iiga muuqato. hal qof baa xuquuqdiisa ka maqan. waa qofte ma zawjatul awal horta wayba leedahay gurigeeda kusoo aroosay waayuu ku yiri. zawjatul awal gurigeedii la kala dhigdhigay. zawjatul thani wa thalis wax xaquuq ay leedahay ma jirto. si fiican u dhageysta fiidiyowga. si fiican ha loo dhageysto. waxaas wayna gubayaan dumarana. waxaa soo haray raggan xuxunow waraa raggan wanaagsan oo masaakiinta ah hanugu soo didinina. zawjatul awal thani saas nin baa maalin wuxuu yiri waxaad helaysaa uu yiri 15 jir oo dhunta biyaha marayna arkaysid. waa dhunta biyaha maray lama arka laakiin waa ogtahay tusaale lagu soo qaata. iyo waa sheekada waa loo gaclo oo hadeerta ma dhunta biyaha maray la arkaa ha
maasha allah maasha allah. haye waaye haye 15 jirkaaseetu guriga hooyadeed edabdarada kasoo waday orod aadaa la yidhaahdaa. hadda maxaa naloo keenay saddexdooda quraan dhurwaay marka akrinaya midba mara ii imaanaysaa. waxaasi waa khalad, diinta islaamka ma qabto. xabiibkeena khayrul khalqilaahi khaatimul ambiyaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam allahuma salli calaa sayidina ayaa xaasas lahaa. xaasaskii uu lahaa mid walba xaafad ayay deganeed ee ku sharfaneed, mid walba mustawa wanaagsan iyo nolosheeda sideeda iyo xuquuqdeeda ayuu kasoo baxay. rasuulkeena taajir muusan ahayn, laakiin qalbiga ayuu ka taajir ahaa. xaasaskiisa xuquuqdooda wuu simi jiray, laakiin qalbigan dadka ma wada simi karo. hal qalbi ayuu ninka leeyahay, hal xaafad buu u badanayaa. xaafaddu ilaahay nasiibka uga dhigan waayo. rasuulka calayhi salaatu wasalaam khadiija markuu jeclaa geeriyootay kadib caaishuu jeclaaday, laakiin xaasaskiisa oo dhan isku seemay ahaayeen, xaafaday kala degnaayeen. waxaan balaayo oo guurka ku cayaaray oo rag isku sheega ah oo inta yimaadaan dhahayaan yacni zawjatii awal wataali wataalis waxay isla seexdaan qolow habeenka u baahana u yartaa. shareecada islaamka iska daayay kutub gaal xataa kuma qornee intayna uga yimaadeen habaar qabayaasha. waryaha gabdhow idinkuna maxaa inka qaldan? war baahida ku haysa ood gurigiina kaasoo wadaysa waxa waaye tan waxaa la dhahaaba qooqaa la yidhaahdaaye abba waa ku baryayaa ilaahay inta ku noqotid bax istiqaarayso salaadu ku quraan akhriso soomo waxa ku haya ku dhibaayo ku ordisiina ilaahay ha kaa dejiyo. hana ceebeenin waalidkaagii. ana haddaan anigoo walaasha ahayn aan kuu naxay aan kuu daqnanaya oo kula dhalanin oo dhiiggayga maanta aadan ahayn ka soomaalinimo islaamnimada walaatinimada maanta aan xanuunkan dareemaya aad malee karin. bal ka waran dadkii ku dhalay 9 bilood kusoo wadiyay kuwii kula dhashay kula magac wadaagay. haddana kuwa kaleeto guryaha ku jiro haddaba yaa allah yaa ummati lagu haaya jidkaad u furaysiin fiiriya. bal haddana mid kalan in haya mid kale isha waxay tahay gabdhaha kareemanka iibiya, kareemanka soo iibsada oo waxa la isku cadeeya soo iibsada daawooyinkan iscadayskan ragga gada ya dumarka qaarkood midaan ka helaba aniga asla way ku cajibisay waan u yeertaa u yiri waa mid nacas ah oo tiraan ya abo ka meeqaayane ya maxaa laga daani hay wax ma iga dhimaysido uu arkaya tan laba eber waaya ha eed hali tii qoran dhura ku aqrina ila naak ninkan aad wax ka gadanaysiin iska ilaaliya gabdhow. ila meesha waxa u tagtay ganacsi ka hooshaadii soo dhamaysa albaabka ka soo bax. yaana la ceebeysani magacii dumarnimo waa dhiga rabnaa maxaa dumar inga dhigaan taaganahay. ilaahay ka xishooda. maxaa ingu dhacay? war ilaahay ha laga xishoodo. ilaahay ha laga xishoodo. waa in jeclahay gabdhow. wiilalo idinkana inma necbi. wiilal waa ila dhasheen aabahay waa nin. waa in jeclahay ragga wanaagsan anima ka hadlooy. kuwa xun ee guurka sida qaldan u fahmayo guurka ha ku ciyaarina. diin islaamka iyo diinta gaaladaba sidaan xataa ma qoraysay. wallahi adduunka markii la leeyahay ninkan xaas mahane xaas kale ma guursan karo ya gaaladu waxayba ka cabsanayaan waxaan isleeyahay dhibaatadan oo kaleeto oo gabdhaha lagu qalbi jabinayo. laakiin anaga ilaahay subxaana watacaala diinteena islaamka ee waasaca ee nadiifka ee raxmadda iyo naxariista waa ku qanacsana. naag ninkeeda rabto ma jirto in la xaliimo soo agmarto, laakiin hadduu qadarka kuu qorana xaliimaha kaa fogaato meel ha dejisto. ragnimadu ku kasta ha ku biisho. laakiin in la iska ag soo dhawaado haddii aad ku heshiiseen labadiina heshiis ku tihiin waa gooniyahay in qarsanaato. laakiin waxaanoo kaleeto social media la wareejina sharaf darro wa abbahay silaali sharaftaada aaway sharaftaadi guriga hooyada aabbaha cunta ma weyna xaa kaasoo ordisiinayo. acuudu billaahi min ashaytaan rajiim. war ilaahay ha laga xishoodo. waxaasoo kale ragga lama yiraahdee. marka anigu waxaan qabaaba wallaahi waxaan isleeyahay gabdhahan yaryar ma fiyoobo. abaa suuqa xoolaha oo lagu iibiye ma tihid, xayawaan lasoo iibsadeen ma tihid. hiyuumanaa tahay, gabaraa tahay, kuwiinaa tahay. noocaas oo kale ha u dhaqmin. kuwa hadda ninkaas qabow sidiina isku qabo. hadda wixii tagi lahaa wixii dhacay waa dhaceen. musiibo iyo magac xumo maalinay baxdaa soo mana noqoto. kuwa hadda safka ku jiro is ilaaliya. ilan guryo badan oo afar isla deganaan ognahay. khayr allah ku dhameeye in isla guursadayna aniga dhib ma ka qabi. haddaba ogaada
yaa hadalkayga meel hadhooti laga soo qaadan xumaana. guurka ilaaha baneeyey, wixii raaliskaga ahna waan iskugu faatixeyneynaa, ilaahay kheyr badan ha siiyo. laakiin social media waxaan xayawaanka camal lasoo aruurina, gabdhahan ari lasoo iibsaday maahan, waalidaa dhalay, walaaley la dhasheen. ka daaya social mediaha, ka daaya. insha allah saasaan isku ognahay. videoga waa ku dheeraaday, xamaasada ay qaaday, akhyaaray, waan jeclahay dhalinyaro. gabdhahan xoolamahan xoolnimada ka daaya insha allah. ilaahayna hayn wanaajiye, ninkaas naga qabta, raggana yoo nagu dirane, isku xishowdhe.